اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، واجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. السلام عليكم asxaabteeda qaali kusoo dhawaada youtube channelkeena. waa mar kale iyo muuqaal cusub. maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago rootiinkeyga maalin kamid ah ramadaanka siduu ahaa. afur yar oo simbal ah oo aan dhib badnayn ayaan rabaa inaan sameeyo. maanta sambuuskii iyo burkii iyo wixii dhan waa ka nasanaynaa hadduu ilaahay yiraahdo. mideeda kale asxaabteeda igu qaata waay maanta waa hargebsanaa, codka dhan ayaa iga xiran. waxaan rabaa inaan meeshaan kusoo karsado beer yar oo aan rabo afurka xiligiisa in la cuno. waxa aan ugu talagalay in oo lagu cunana waad arki doontaan hadduu ilaahay yiraahdo. beerka marka hore waxaan kusoo daray maraq digaag, kadib markii aan dabka soo saaray oo xoogaa uu karsamay waxaan kaloo ku daray huruud shiidan. markay intaas isku soo bislaadeen wax yar waxaan rabaa inaan u yeelo qoyaan ama maraq yar oo lagu cuno. waxaan ku daray biyo yar, kadibna hadda waa ujeedaan waxaan kusoo darayaa basashii. oo haddii basasha aan ku daro micneheeda waxaa wax yar ayaan isku huurinayaa, kadibna wuu inoo diyaarsan yahay. ugu dambeyn markii aan kasoo dejiyey kadib waa kana rootigaas haddii aad taqaanid waa kaasaa. waxaan kusoo shubayaa weelkii aan ugu talagalay in aan ku diyaariyo. aan xabad xabad ugu shubayaa asina waxaan dhahan mar kusoo gadibo si fuusad oo simbal ah. asxaabteeda ramadaan mubaarak, ramadaan kariim. ramadaan hadda waaba naga tagay, waa gabagabo. hadda wixii ka dambeeya waa inaa idin dhaho ciid mubaarak, ciid wanaagsan iyo warama siday iskugu diyaariseen ciida. alxamdulilah, ilaahay ayaa mahad iskale fursad inuu siiyey bisha ramadaan oo idil in aan gaarno. ilaahayn ajarkeeda hana siiyo. ugu dambeyn sidaas quruxda badan ayuu kusoo baxay. dhinaca kale waxaan rabaa in aan sameeyo cashadii oo afurka kadib ayadana la cuni lahaa. aniga bishaan ramadaanka canjeerada aad u jeclahay oo too much ayaan u isticmaalaa ama aan u karsadaa canjeerada. dadba waxbay u badan yihiin bisha ramadaan. dadaa badanaa baasta ku afuro, kuwa beriisay jecel yihiin. aniga beriis ramadaankan dhanba hal maalin mise 2 maalin camal kugu afurnay. inta kale baasto ama canjeero, siiba canjeerada aada loo jecelyahay gurigeena alxamdulilah. intaas kadib waxaan rabaa inaan meeshaan aan ku sameeyo maraq yar. maraqaan waad arkaysaan qaabka aan u sameeyo. markii uu soo karsamay oo xoogaa hilibka soo bislaaday, hilibkii ayaan gooni usoo bixiyey. waxaan rabaa inaan si gooni u kariyo oo aan ka kariyo maraqii canjeerada lagu cuni lahaa. hilibkii oo bisil ayaa inta kusoo shubay. xoogaa waan carfinayaa saa ujeedaan. waxaan ku daray saliid iyo basal, kadibna waxaan kusoo gediyey hilibkii. maasha allah, hilibkuu bisil yaa karis badan ma rabo, kaliya waxaan rabaa inaan baradhada aan ku bisleeyo. waad arki doontaan hadduu ilaahay yiraahdo. maraqina sida aan yeelay asagana waan idin tusayaa. waayo ayaantan guriga waa laga hargebsan yahay. waxaan rabaa in maraqaas qaabkaas u sameeyo. intaas kadib waxaan kusoo daray maraq digaagiisii. waxaan kaloo kusoo daray hal xab baradho xoogaa size weyn ayaan kusoo daray. intaas oo isku bisleynayaa hadduu ilaahay raali ka noqdo. maanta afurkeena iyo cashadeenaba simbal ay ahayd. wax yar oo 30 daqiiqo ka yar aan ku karinay ayuu ahaa alxamdulilah. kadib maraqii waa kana. waxaan kusoo daray filfil oo shiidan ayaan kusoo daray. waxaan kaloo kusoo daray filfil aan shiidnayn ayadana oo waaweyn sideeda maraqaan sidaas ayuu diyaar ku yahay. qaabkaas ayaan lagu cabi doonaa. hilibkiina waad aragteen sida aan yeelay. waxaan ka karinayaa maraqii canjeerada. baradhadii oo soo bislaatay
soo saa ujeedaan waxaan sameynaya baradhadii oo bisil inaan xoogaha aan ku jejebiyo kadibna waxa aan ku darayaa basashiisa iyo barbaroonigiisa. Laakiin marka aan ku daraayo basasha iyo barbarooniga ma aanan duubin, laakiin xoogaa sii karinaya to ilaahay raali ka noqdo. Intaas kadib markii baradhada aan jejebiyo waxaan kusoo daray biyo aan rabo inuu xoogaa ku bislaado. maasha allah, maraq yar wuxuu ahaa simbal aad u macaan. Baradho aan ayadana si yaryar usoo jarjaray ayaan korka uga soo daray. Baradhadan iyo biyaha yarka ayaan haddana isku hoorinayaa si ay iskugu bislaadaan. Intaas kadibna waxaa waaye insha allah diyaar ayuuba inuu noqon doonaa hadduu ilaahay raali ka dhigo. Soo asxaabteeda galabta afurkeena sidaas ayuu u fududaa. Waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Fadlan haddii aad halkan soo gaartay nagu soo beer oo ka mid noqo asxaabteena. Mahadsanid.